السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu qaadanaynaa casharkii toddobaad xisaabta aasaaska ah. Casharkan wuxuu ku saabsan yahay subtracting decimal numbers from whole numbers, tirooyin decimal number ah oo laga jarayo tiro whole number ah. Waxaynu qaadanaynaa dhowr tusaale. U horeeya waa 5.8 oo laga jaray 3. 5.8 oo laga jaray 3 ka shaqeynayna. 5.8 waa tiro decimal number ama tiro dhibicli ah. 3na waxa waaye waa tiro whole number ah. marka rabno inaan ka shaqeyno qaybta kore dhibic wata, qaybta hoosena dhibic ma wato. laakiin markasta waxa wata in la isku aadinayo tirada whole numberka. hadda inta decimal numberka waxa waaye waa dhibic 8. intaas baa decimal ah, laakiin 5ta decimal ma waa tiro whole number ah. marka waxaan samaynaynaa 8 maadaama ay tiro ku hooseyn noo soo qaad oo soo deji, kadib dhibic soo qaado, kadib waxaa samaynaysaa 5ta waxaa ku yaraysaa 3. 5 marka 3 ka jirto maxaa kusoo bixi 2 kusoo bixi. marka 5.8 marka laga jaro 3 waxaa kusoo bixi 2.8. haddii la calaamad badalo $5 iyo 80 senti haddaa haysatay oo laga qaatay ama shay kusoo gadatay $3 waxaa kusoo haray oo hara ahaan u haysataa 2.80 senti. $2.80 ay haysataa. tusaalena labaad waa 7.25 oo laga jaray 4. 7.5 ayaa waxaan ka jaraynaa 4. waxaan samaynaysaa marka maadaama 4ta whole number tahay, qaybta koraan tiro decimal number tahay, 4tan tiro ka hooseynin laga jaro 25ta sida usoo deji, kadib dhibica soo qaado, kadib waxaad samaynaysaa 7 waxaa ka jaraysaa 4ta. 7 4 ka jar maxaa waaye waa 3. $7.25 oo haysta ayaa waxaa kusoo iibsatay ama shay kusoo gadatay $4. waxaa lacag ahaan u haysataa hadda $3.25. tusaalena ku xiga waa 9.6 waxaan ka jaraynaa 2. 9.6 laga jaray 2 ay noqonay. marka 6 na soo qaad, tiro kuma haysayso, kadib dhibic soo qaado. 9 waxaa ka jirtaa 2. 9 marka 2 ka jirto meeqa waaye waa 7. marka waxaa kusoo bixi 9.6 marka laga jaro 2 waxaa kusoo bixi 7.6. tusaalaha ku xiga waa 6.4 oo laga jaray 3. 6.4 laga jaray 3 meeqa waaye 4ta soo qaado, kadib dhibic soo qaado. 6 waxaa ka jirtaa 3 meeqa waaye 6 3 ka jar waa 3. marka waxaa kusoo haray 3.4. tusaalaha ku xiga waa 8.75. 8.75 waxaan ka jaraynaa 6 aan ka jaraynaa. waxay noqon marka 75ta tiro kuma haysayso aan ka jarno. marka sidaa soo qaado, kadib dhibic soo qaado. 8 waxaa ka jartaa 6. 8 marka 6 ka jarto meeqa waaye waa 2. waxaa kusoo bixi marka 2.75. tusaalaha ku xigo waxaa haysataa 8 waa 5.873 oo laga jaray 2. waxaa samaynaysaa marka labada qaybta hoose dhan tiro ma taalo. marka 3 soo qaado, soo dejiso, 7na soo dejiso, 8na soo dejiso, kadib dhibic soo dejiso. 5 waxaa ka jirtaa 2. 5 marka 2 ka jirto meeqa waa 3. waxaa kusoo bixi marka 3.873. tusaalaha ku xiga waa 7.426 oo laga jaray 3. waxaa samaynaya iyadana 6 na soo qaad, 2na na soo deji, 4ta na soo qaad, dhibic soo qaad, kadib 7 iyo 3 ka jar. 7 3 ka jar meeqa waaye waa 4. waxaa kusoo bixi marka 4.426. tusaalena ku xiga waa 456.78 ama 78 oo laga jaray 125. maxaa dhahnay markasta waxaa ogaataa in tirada labada tiro ee whole numberka la isku aadinayo. hadda uma qori kartid 456.78 ma dhigi kartid 125. sababtoo ah tiradan waa tiro whole number, tanna waa tiro whole number. markasta waxaa isku aadinaysaa
tirada whole numberka tira aan dhibic wadanin ayaad soo aadinaysaa. Waxaan sameynaa marka 8 noo soo deji, 7 noo soo qaad, dhibic noo soo qaad, kadib 6 waxaa ka jirtaa 5 waa 1, 5 waxaa ka jirtaa 2, 5 marka 2 laga jaro meeqa waay? waa 3. haya 4 waxaa ka jirtaa 1, 4 3 ka jar maxaa waay? waa 3. waxaa ku soo bixi marka 331.78. tusaalaha ku xiga waa 320.5 oo laga jaray 248, 248 labada tiraan kala jarayna. waxaan sameynaa marka horeysa shantan tira kuma soo qaado, kadib dhibic soo qaado, kadib meesha waxaa ku taala eber 8 ka jar, eber iyo 8 markaa jarmaya. maxaa sameynaysaa marka tirada ku xigta ayaad hal ka soo qaadanaysaa, kadib eberta garab dhigaysa marka waxay noqonay 10 bay noqonay. halkan waxaa ku hartay hal baa ka qaaday, meeshaas waxaa ku hartay hal ogsoonow. marka 10 8 ka jar maxay noqonay 2. meesha waxaa ku taala hal waxaa ka jirta 4 ma ka jarmaysa sidoo kale. waxaa sameynaysaa marka qaybtan aad tirada ku xigto hal ka soo qaado, waxayna meesha ku noqonay 11. 11 waxaa ka jirtaa 4. 11 marka 4 ka jirto waxaa ku soo bixi 7 ku soo bixi. haye meesha waxaa ku hartay hal ka qaaday, waxaa ku hartay 2 ka jar marka waxay noqonay eber. eberka ma qoran waxayna ku soo bixi jawaabta 72.5. 72.5 ku soo baxayso. tusaalaha ku xigo waa 910.63 oo laga jaray 512. 512 saddex soo qaado, 6 soo qaado, dhibic soo qaado, kadib eber waxaa ka jirtaa 2, eber 2 kuma jarmaysa, tirada ku xigta aad waxay ku noqon kartaa 10, 2 ka jar waa 8. meesha waxaa ku taalo hal baa ahayd, hal baa ka qaatay, meesha eber ku taalo. haye ebertan waxaa ka jirta 1, eber 1 kama jarmayso, tirada ku xigta aad waxay ku noqonay hal ka soo qaado, 10ka eberka garab dhig, waxay ku noqon kartaa 10 hal ka jar. 10 hal ka jar meeqa waay? waa 9. meesha waxaa ku hartay 9kan waxaa ku hartay hal baa ka qaaday, waxaa ku hartay 8. waxaa ku hartay 8 waxaa ka jirtaa 5, 8 marka 5 ka jirta waxaa ku soo baxay 3. jawaabtan waxay noqotay 398.63. tusaalahan ku xigo waa 600.99 oo laga jaray 275. waxaad sameynaysaa marka 9 soo dejiso, 9 kana soo dejiso, kadib dhibic soo qaado, ebertan iyo 5 kala jar, eber 5 ka jar ma ka jarmayso, tirada ku xigta waa isku mid waaye. tirada ku xigta 6 marka waxaa ka soo qaada hal midda eberta soo halka garab dhig waxay noqon kartaa 10. haye ka soo qaada adiga u baahan meeshaasi eberta okay marka waxay noqotay 10. meesha waxaa ku haraysa 9 ku haraysa, 6 meesha waxaa ku soo haraysa 5. saas waa inaad u kala ogaataa. marka 10kan 5 ka jar waa 5. meesha waxaa ku taala 9 waxaa ka jirtaa 7. 9 marka 7 laga jar meeqa waay? waa 2. haye meesha waxaa ku taala 5 waxaa ka jirtaa 2. 5 marka 2 laga jar waa 3. waxaa ku soo bixi marka 2 waxaa ku soo bixi 325.99. tusaalahan ku xiga waa 452.8 oo laga jaray 317. maxaa sameynaysaa marka 8 soo qaado, dhibicna soo qaado, 2 waxaa ka jirtaa 7. 2 iyo 7 markaa jarmayso oo 2 yar 7 weyn tahay. marka tirada ku xigta aad waxaad sameynaysaa marka 5tan baa hal xabo ka soo qaadanaysaa, 2da garab dhigaysa ma ku daraysid, waa garab dhigi, waxay ku noqon marka 12. 12 marka 7 ka jar, 12 waxaa ka jirtaa 7 marka ka jarto waxaa waay waa 5. meesha waxaa ku taala hal baa ka qaaday, 4 ku taalo, markaas waxaa ku taalo 4. 4 waxaa ka jaraysaa hal, 4 marka hal ka jarto meeqa waay? waa 3. haye meesha waxaa ku taala 4 3 ka jar isagana waxaa waay waa 1. marka waxaa ku soo bixi 135.8.